assalaamu calaykum ila dhegayso sheekadan cajiibka badan waxaa jiray zamanadii inaga horeeyey boqor aad u cajiib badan boqorkaasi waxa uu ahaa boqor cadaalad badan oo cadaaladiisii ay gaartay meel weliba boqorkaasi cadaaladda badnaa ifka waxa uu joogay laba caruura waxa uu haystay laba gabdhood mar weliba waxa uu ku hamin jiray haweenaydiisii inay u dhasho wiil si uu u hantiyo boqortooyadiisii hase yeeshee boqorkaasi cadaaladda badnaa haweenaydii uu qabay waa ay u dhali weyday wiil hase yeeshee boqorkaasi cadaaladda badnaa ifka waxa uu joogay laba gabdhood labadaasi gabdhood waxa ay ahaayeen kuwo aad u yaryar hase yeeshee boqorkii cadaaladda badnaa haweenaydii uu qabay labadaasi gabdhood markii ay u dhashay waa ay u dhali weyday wax kale oo caruur ah sanooyin faro badan ayuu sugayay boqorkaasi cadaaladda badnaa haweenaydiisii mar caruur kale inay u dhasho hase yeeshee waa ay noqon weyday mid u dhasha caruur boqorkii cadaaladda badnaa haweenayda uu qabay juhdi faro badan ayay la soo gashay intii uusan boqor noqon dadaal badan ayay la soo samaysay inuu boqor noqdo waxaa ka dambeeyay haweenayda uu qabo waxa ay ahayd udub dhaxaadka boqortooyada boqorkuna waxa uu diidayay inuu ku jasaaro oo haweenay kale u guursado waxa uu go'aansaday boqorkii labadaasi caruur ee gabdhaha ahaa kaligoodii inuu haysto uu haweenay kale uusan guursan waxa uu dhowrayay uu ilaalinayay qalbiga haweenayda uu qabay waayo haweenaydaasi waxay ahayd haweenayda ka dambayda inuu noqdo boqor hase yeeshee wixii wakhtiga uu wareegtaaba labadii gabdhood uu dhalayay boqorka waxa ay noqdeen dad waaweyn oo qaangaaro ah hase yeeshee labadaasi gabdhood waxa ay ahaayeen laba gabdhood oo aad u kala duwan midda curadka ahayd waxa ay ahayd mid wanaag badan cadaalad badan oo dadaal badan mar weliba aabbaheedii ay caawin jirtay waxay isu beddeshay gabadhii curadka ahayd gabar ka tirsan boqortooyadii boqorka waxa ayna noqotay udub dhaxaadkii boqortooyadaasi howlo badan ayay qaban jirtay waa ay dadaali jirtay oo boqortooyadaasi wax badan ayay ka caawisay gabadhaasi curadka ahayd hase yeeshee boqorkii waxa uu ogaaday oo aaminay haddii haweenaydiisii ay u dhali lahayd rag xitaa booska gabadhaasi curadka ahayd ay buuxisay in uusan buuxin lahayn boqorkii cadaaladda badnaana gabadhiisii curadka ahayd waa uu ku nastay waayo waxa uu arkay in ay tahay gabar aqli badan maskax wanaagsan dadaal badan oo cadaalad badan shaqo badan aad buu ula yaabay gabadhiisii hase yeeshee gabadhiisii yarayd arrinkaasi aad bay u dhibsanaysay waxa ay doonaysay aabbaheedii boqorka ah mar inuu geeriyoodo si ay ula wareegto boqortooyada gabadhiisii yarayd waxa ay ahayd gabar damac waalan oo iimaan daran weligeedii waxay ku haminaysay aabbaheedii mar inuu geeriyoodo si ay ula wareegto dhammaan boqortooyada hase yeeshee gabadhii yarayd waxaa dhacay wax iyadu aysan ku farxin hooyadeedii oo sanooyin faro badan uur aysan qaadin ayaa uur qaaday gabadhii yaraydna waxay ka walwashay hooyadeedii uurka caloosheedii ku jiro inuu noqdo wiil kadibna boqortooyada uu dhaxlo wiilkaasi caloosha ku jira gabadhii yarayd aad bay uga niyad jabtay uurka ay yeelatay hooyadeedii halka boqorka aabbahoodii ahaa uu aad ugu farxay sanooyin faro badan kadib inay uur u qaaday haweenaydiisii hase yeeshee haweenaydii yarayd arrinkaasi aad bay u dhibsatay oo waxa ay ka cabsootay in ay weydo wixii ay ku haminaysay oo ahaa mar in ay la wareegto boqortooyada oo idil hase yeeshee gabadhaasi yarayd oo sharta badnayd waxay u tagtay qaadim u qaadimayay aabbaheedii boqorka ahaa qaadimkaasi waxa uu la shaqaynayay aabbaheedii 27 sano cimri faro badan ayuu ku qaatay inuu u qaadimo boqorkuna aad buu u kalsoonaa wuuna jeclaa qaadimkaasi waayo waxa uu ahaa qaadim cadaalad badan run badan oo shaqo badan hase yeeshee haweenaydii yarayd oo boqorka dhalayay sharta badnayd waxay u tagtay qaadimkii adigu weligaadii boqorkaani miyaad u qaadimaysaa da'daadu aad bay u weyn tahay weligaadii ma aadan guursan waayo waxaad u qaadimaysay boqorka guurkuna waa aad ka gaari weyday hase yeeshee boqorka waxa uu leeyahay caruur hanti faro badan ayuu leeyahay hase yeeshee adigu maxaad haysataa
weligaadii boqorka ayaad u qaadimaysay noloshaadii sidaan miyaad ku dhammaysanaysaa boqorka miyaad hoos joogay u ahaanaysaa cimrigaadii intii ka dhiman hase yeeshee qofkii qaadimka ahaa oo cadaaladda badnaa qalbigiisii uqudad faro badan ayay ku beertay ilaa qofkii cadaaladda badnaa oo daacadnimada badnaa ay ka dhigtay mid xasidnimo badan oo shar badan ugu dambayntii gabadhii yarayd oo sharta badnayd waxay ku tiri qofkii qaadimka ahaa waxa aan doonayaa anigu inaad i guursatid hase yeeshee qofkii qaadimka ahaa aad buu ula yaabay arrinkaasi waa uuna aamini waayey waxa uuna ku yidhi gabadhii yarayd adigu waxa aad tahay boqorka gabadhiisii aniguna waxa aan ahay qaadimka boqorka sidee ayaan isku guursanaynaa arrinkaasi macquul ma ahan aniga ayaa ogol inaad i guursato waayo anigii ku diidi lahaaba waxa aan diyaar u ahay inaan isguursano hase yeeshee qaadimkii isagoo aad u faraxsan ayuu ka aqbalay inuu guursado haweeneydaasii yarayd qaadimkii isaga oo degdegaya ayuu boqorkii u tagay waxa uuna ku yidhi boqorow anigu waxa aan doonayaa in aan guursado hase yeeshee boqorkii hadalkaasi qaadimka aad buu ugu farxay waxa uuna ku yidhi 27 sano ayaad ila joogtaa da'daadu aad bay u weynaatay waxaan ku haminayay mar inaad hadalkaani igu tiraahdo arooskaadii iyo kharashaadkaadii oo idil aniga ayaa bixinaya oo qasrigaygii ayaa meelkaa dejinaya oo ii keen gabadhii aad guursan lahayd qofkii qaadimka ahaa ayaa ku yidhi boqorow anigu waxa aan doonayaa gabadhaadii yar in aan guursado waayo waa aan soo heshiinay waxayna ogoshahay guurkaygii raalli ayayna ka tahay boqorkii ayaa ku yidhi qaadimkii arrinkaasi macquul ma ahan adigu waxa aad tahay qof cadaalad badan oo daacadnimo badan waxa aan doonayaa inaan kugu daro gabar cadaalad badan oo aqli badan sharteeduna ay yar tahay hase yeeshee qaadimkii ayaa ku adkaystay inuu guursado gabadhii boqorka hase yeeshee boqorkii arrinkaasi waa uu ka diiday qaadimkiina isaga oo caraysan oo aaminsan boqorka inuu ku liidayo qaadimnimadiisii ayuu ka soo laabtay waxa uuna u tegay gabadhii anigu aabbahaadii aad buu ii soo liiday oo waa uu iyasay waxa uuna igu liiday shaqadeydii waayo waxa aan ahay qaadimkiisii sidaasi aageedii waa uu ii soo diiday gabadhiisii inuu ii guuriyo hase yeeshee boqorkaasi cadaaladda badnaa waxa uu ogaa gabadhiisii yarayd in ay tahay mid shar badan dhib badan damaceeduna aad uu u weyn yahay waxa uu diidayay qofkaasi miskiinka ahaa oo qaadimka ahaa oo cadaaladda iyo runta badnaa in ay dhibto waayo waxa uu ogaa in ay dano gaar ah ay ka leedahay marnaba aysan doonaynin in ay guursato qofkaasi miskiinka ahaa hase yeeshee haweeneydii sharta badnayd ayaa ku tiri waa aan ogaa aabbahaygii sidaanay mar inuu kuu galayo 27 sano ayaad u shaqaynaysay weliba si daacadnimo ah ayaad ugu shaqaynaysay maantana waa aad u jeedaa waxa uu kugu liiday shaqadaadii waayo waa uu ku yasay waxa uuna diidayay gabadhiisii boqortooyada ah inuu adiga oo qaadim ah kugu daro waa aad u jeedaa sida uu ku liiday aabbahaygii hase yeeshee anigu diyaar baan ku ahay qaadimkii miskiinka ahaa oo cadaaladda badnaa qalbigiisii waxay ku beertay uqdad faro badan ilaa uu isugu beddelay qof shar badan oo xasidnimo badan qaadimkii ayaa ku yidhi gabadhii yarayd waxa aan doonayaa aabbahaadii iyo hooyadaadiiba in aan horteennay isaga leexino hase yeeshee gabadhii yarayd ayaa ku tiri anigu waxa aan doonayaa in aan mar boqortooyadaani aan la wareego adiguna waxa aad noqonaysaa boqorradda ninkeedii waxaad ku noolaanaysaa nolol wanaag badan oo farxad badan qaadimkii ayaa ku yidhi waxaa qasab ah aabbahaadii iyo hooyadaadiiba horteeni inaan ka leexino hase yeeshee haweeneydii sharta badneed ayaa ku tiri qaabkee ayaan horteeni ugu leexinaynaa qaadimkii ayaa ku yidhi aabbahaadii axad waliba waxa uu aadaa ugaadh buuraha waaweyn hoostoodii ayuu ka ugaadhaa isaga iyo dadka hantiilayaasha ah oo degan magaaladani waxa aan doonayaa aabbahaadii aroortii inaan kaxeeyo intii aysan imaan dadka kale ee ugaarsatada ah halkaasi ayaan geynayaa oo halkaasi ayaan ku dilayaa dadka ugaarsatada ah intii aysan imaan hase yeeshee gabadhii yarayd arrinkaasi aad bay u dhibsatay waayo si weliba ay u xumaato qofkaasi waa aabbaheedii oo waxa ay damacday inay ka diido qofkaasi qaadimka ahaa hase yeeshee
magaalada oo idil iyada oo xukumaysa ayaa niyaddeeda ku soo dhacday arrinkiina go'aan ayay ka gaartay oo qofkii khaadimka ahaa waxay ku amartay aabbaheedii inuu dhagartaasi u maleego kadibna uu ku dilo buurahaasi waaweyn hoostooda hase yeeshee khaadimkii ayaa ku yidhi hooyadaadii arrinkeennu aad bay shar ugu tahay waayo caloosha waxay ku sido lama oga haddii uu noqdo wiil boqortooyada waxaa la wareegaya wiilkeedii adiguna hawada ayaad ka baxaysaa hase yeeshee haweenaydii yarayd oo sharta badnayd ayaa ku tiri qofkii khaadimka ahaa hooyadaydii aniga ayaa horteennii ka leexinaya dhalitaankeedii maalmo un ayaa ugu harsan waxaan u wadayaa kaymaha dhexdoodii waxaan ku odhanayaa hooyoy adigu dhalmadaadii waa ay dhowdahay waxaa la doonayaa socod dheer inaad socoto waxaan u wadayaa kaymaha waaweyn dhexdoodii kadibna kaymahaasi dhexdoodii ayaan ku dilayaa kadibna waa aan ka soo tegayaa hase yeeshee khaadimkii ayaa ku yidhi waxaa jira gabar aad u aqli badan xigmad badan oo walaashaadii ah sidee ayaan ku samaynaynaa hase yeeshee gabadhii yareed ayaa ku tiri mar aniga iyo adiga haddaan isguursano aabbahaygii aad soo disho aniguna hooyadaydii aan soo dilo gabadhaasi waa gabar qalbi jilcan oo miskiin ah waxaa laga yaabaa murugo awgeedii inay la kic weydo kadibna waxaan ka dhiganaynaa shaqaalaheenii boqortooyadeennii ayay ka shaqaynaysaa oo ariga ayay noo raacaysaa nadaafadda guriga ayay noo qabanaysaa oo waxaan ka dhiganaynaa khaadim noo shaqeeya arrinkii ayay ku heshiiyeen khaadimkii iyo gabadhii sharta badnayd waxaa dhacay gabalkii kadibna waagii ayaa baryey oo waxaa la gaaray subaxii khaadimkii waxaa u tegay boqorkii waxauna ku yidhi boqorow waxaa la gaaray xilligii aan ugaarsan lahayn hase yeeshee boqorkii ayaa ku yidhi xilligii aan ugaadha aadi lahayn lama gaarin waayo waaguba hadda ayuu baryey hase yeeshee khaadimkii ayaa ku yidhi boqorow aroortii waxaa la helayaa ugaadh faro badan haddii qoraxdu ay soo baxdo dad faro badan ayaa meesha imaanaya oo ugaarsanaya kadibna ugaadha waa aan weynaynaa waxa aan doonayaa maanta aroornimadani in aan aadno buurahaasi hoostoodii waxaa hubaal ah in aan soo helayno ugaadh faro badan hase yeeshee boqorkii arrinkaasi macquul ayuu la noqday oo waxa ay ku kallaheen buurihii waaweynaa hoostoodii markii ay tageen buurihii oo uu arkay wakhtigu inuu yahay subaxnimo welina dad aysan imaan meeshaasina cidlo ay tahay boqorkii oo ugaarsanaya ayuu gadaashiisii soo maray waxa uuna ku taagay fallaar aad u halis badan dhabarka ayuuna uga taagay ilaa uu ka geeriyooday boqorkii hase yeeshee haweenaydii yarayd oo sharta badnayd subaxnimadii ayay kaxaysay hooyadeedii oo waxay u waday kaymihii waaweynaa dhexdoodii kadibna hooyadeedii si aayar ah gadaal inay uga martay ayay midi dhabarka ka gelisay ilaa meesha uga dhiig baxdo waxa ayna ku tuurtay meel jiq ah oo ka mid ah kaymahaasi si aan loo arag hase yeeshee saacadooyin faro badan kadib waxaa guriga ku soo laabtay qofkii khaadimka ahaa iyo gabadhii yarayd oo sharta badnayd markii ay albaabka ka soo galeen haweenaydii curadka ahayd oo aqliga badnayd ayaa ku tiri keligiinni ayaad socotiin adigu aabbahaygii ayaad kaxaysay subaxnimadii aaway aabbahaygii adiguna hooyadeydii ayaad kaxaysay subaxnimadii aaway hooyadeydii hase yeeshee khaadimkii ayaa ku yidhi aabbahaadii waa uu geeriyooday allah u raxmado hase yeeshee haweenaydii curadka ahayd arrinkaasi aad bay uga argagaxday waxayna ku tiri aabbahaygii adiga ayaa kaxeeyey oo weliba xilli hore ayaad kaxaysay xilliyadii aad kaxayn jirtay ma aadan kaxayn subaxii ayaad kaxayday sidee ayuu ku geeriyooday aabbahaygii qofkii khaadimka ahaa ayaa ku yidhi aabbahaadii ugaadhsatadii halkaasii timid fallaarihii ay tuurayeen ayaa si lama filaan ah ay ugu dhacday aabbahaadii hase yeeshee fallaadhaasi waxa ay ahayd mid sumaysan aabbahaadiina suntaasi awgeedii ayuu la geeriyooday qofkaasi khaadimka ahaa indhihiisii markii ay egtay waxa ay ka dareentay qof dhagar maleegaya oo shar badan waxa ay u jihaysatay dhankii walaasheedii ka yarayd waxayna ku tiri hooyadaydii aroornimadii ayaad kaxayday halkee ayaad geysay oo hooyadaydii aaway hooyadaydii waxaan u waday si aan u soo socodsiiyo waxaana geeyey kaymaha dhexdoodii kadibna waxaa kaynta noogu soo baxay bahla halis badan oo dadka cuna hooyadaydii uur bay lahayd ma ahayn mid carari karta anigu lugahaygii ayaa la soo baxsaday hooyadaydiina bahalkii ayaa cunay ayay ku tiri gabadhii yarayd hase yeeshee gabadhii curadka ahayd gabadhii walaasheedii ahayd
iyo qofkii qaadimka ahaa waxay ka dareentay in ay yihiin sharwadayaal hadalkoodiina ma aysan ahayn mid aaminta oo ka rumaysata. Gabadhii curadka ahayd waxay u carartay dhankii buurihii oo waxa ay raadisay aabbaheedii, kadibna waxay aragtay aabbaheedii oo dadkii ugaarsatada ahaa oo idil dushiisii taagan. Ugaarsatadii oo idil ayay waraysatay gabadhii curadka ahayd. Waxay ku tiri aabbaheegii, fallaadhaani yaa ku dhuftay? Aabbahaadii halkaani aroortii ayuu yimid. Waxaan halkaani ugu nimid isaga oo fallaadhaani ay ku taagan tahay. Hase yeeshee haweenaydii curadka ahayd oo caqliga badnayd oo xigmadda badnayd waxa ay xaqiiqsatay aabbaheedii in uu dilay qofkii qaadimka ahaa. Kadibna meydka aabbaheedii waxaana lagu aasay qabuurihii lagu aasi jiray dadka magaaladaasii deganaa. Haweenaydii curadka ahayd waxay u carartay dhankii keymaha. Hooyadeedii ayay ka dhex raadisay keentii. Waxa ay aragtay hooyadeedii oo nafta ay ku sii jirto, hase yeeshee xaaladdeeduna ay aad u xun tahay. Iyadoo sidaasii ahayd ayaa fooshii qabatay gabadhii curadka ahayd. Waxay ka dhalsiisay hooyadeedii waxayna dhashay 2 wiil oo mataano ah. Hase yeeshee hooyadeedii dhiig faro badan ayaa ka baxay, waayo mindi aad u weyn ayaa dhabarka loogu taagay. Naftuna in yar bay ku yara dambaysay. Waxayna la dardaarantay gabadheedii curadka ahayd. Waxayna ku tiri gabadheedii, waxa aan doonayaa walaalahaadii in aad barbaariso. Hase yeeshee intii ay la dardaarmaysay ayay geeriyootay. Geerida hooyadeedii aad bay ugu murugotay, waa ayna ka niyad jabtay. Hase yeeshee haweenaydaasi waxay meesha ka dhistay guri ka samaysan qoryo. Guri aad u adag ayay halkaasi ka samaysay si aysan dugaagta u cunin walaalaheedii yaryar. Walaalaheedii markii ay meesha ku xaraysay waxay ku laabatay qasrigii. Waxayna aragtay kursigii boqorka oo ku fadhida walaasheedii ka yarayd. Qofkii qaadimka ahaana uu fadhiyo meeshii ay fadhiisan jireen dadka madaxda ah ee la shaqayn jiray boqorka. Markii ay albaabka ka gashayba waxaa si jees ah oo liiditaan ah ula hadlay walaasheedii ka yarayd. Waxayna ku tiri, wax aad noo tahay shaqaale oo wax aad noo raacaysaa ariga. Hase yeeshee gabadhii curadka ahayd arrinkaasi si degdeg ah ayay ku aqbashay, waayo waxay ka cabsootay sharta ninkaasi iyo walaasheedii ka yar. Waxayna bilowday gabadhii curadka ahayd isla maalintaasi in ay kaxeedo ariga oo ay u kaxeedo dhankii keynta. Waxayna geysay meeshii ay ku jireen 2 wiil oo yaryara oo walaalaheedii ahaa. Arigii iyadoo ay soo raacday ayay caano u maalaysay. Caanahaasi ayay afka ugu dhabcin jirtay. Mar walibana sidaasi ayay samayn jirtay. Ariga markii halkaasi ay geyso waa ay soo dhuuman jirtay oo waxay ka warhayn jirtay walaalaheedii ku dhex nool keentaasi dhexdeeda. Hase yeeshee maalin maalmaha ka mid ah qof dhex wareegaya keenta. Qofkaasi waxa uu ahaa qof qoryo ka guranaya keenta. Ayaa waxa uu arkay gurigii qoryaha ka samaysnaa oo ay ku jiraan 2 caruura oo aad u yaryar. Qofkaasi qoryaha guranayay caruurtii ayuu meesha ka saaray oo waxa uu geeyay gurigiisii oo haweenaydiisii ayuu u geeyay. Waxa uuna ku yiri, caruurtaani waxa aan ku soo dhex arkay keenta. Qofkii dhalayna ma garanayo. Waxa aan uga cabsooday dugaagtaasi halista badan oo keenta ku dhex nool in ay cunto. Waxa aan doonayaa in aan korsano caruurtaani, waayo haweenaydaasi wax caruur ah ma aysan u dhalin qofkaasi qoryaha guranayay. Hase yeeshee haweenaydii aad bay ugu faraxday caruurtaasi oo u keenay ninkeedii, waayo waxay ahayd haweenay madhalays ah oo weligeedii caruur aysan dhalin. Waxa uuna ku yiri caruurtaani, maanta wixii ka dambeeya waa caruurteedii, waxaana la oranayaa Xasan iyo Xuseen. Hase yeeshee gabadhii curadka ahayd ayaa keyntii u soo kaxaysay arigii ay raaci jirtay. Waxayna timid halkii ay ku jireen walaalaheedii. Hase yeeshee waxay ka weyday walaalaheedii. Aad ayayna u naxday. Meel waliba ay ka raadisay oo dhan waliba ayay u orday. Si waliba ay u raadisay waa ay weyday 2 caruur. Arrinkaasina aad bay uga niyad jabtay. Waxayna ka niyad jabtay in ay weydo walaalihii iyadoo ay ku tashanaysay. Hase yeeshee waqtigu aad buu u dheeraaday. Sanooyin faro badan ayaa ka soo wareegatay. 2 caruur oo uu soo barbaarinayay odaygii qoryaha gurayay waxa ay noqdeen dad waaweyn oo qaangaaro ah. Hase yeeshee haweenaydii curadka ahayd intaasoo sano waxay u shaqaynaysay oo qowsaar u ahayd walaasheedii boqorada ahayd iyo qofkii qaadimka ahaa. Sanooyinkaasi faraha badan keymahaasi ayay maalin waliba arigaasi geynaysay, kadibna waa ay ka soo laabanaysay. Hase yeeshee maalin maalmaha ka mid ah iyada oo keynta joogta ayaa waxaa ka hor yimid
laba qof oo dhalinyaro ah oo aad u qurux badan. Kadibna markii ay u soo dhawaadeen, waxa ay aragtay labadaasi qof in ay yihiin sidii aabbaheedii dad laga jaray. Waxa ay ahaayeen aabbaheedii oo inta taagan. Aad bay uga ekaayeen aabbaheedii, aad bayna ula yaabtay. Durba waxay niyadda gashatay in ay yihiin labadaasi wiil, labadii wiil oo ay duurka uga tegaysay. waa ayna la hadashay waxayna ku tiri weligeygii keentaan idinkuma arkin halkaani maxaad ka samaynaysaan. hase yeeshee labadii wiil ayaa ku yiri annagu keentaani maanta ayaa noogu horeyda, waxaan la shaqaynaynaa aabbaheeni halkaani ayuu qoryo ka guraa. maanta wixii ka dambayda waxa aan doonaynaa aabbaheeni shaqadii uu qaban lahaa annagu in aan qabano. aad bay ula yaabtay haweeneydii sida ay ugu egyihiin aabbaheedii. waxay ku tiri aabbihiini halkee ayuu joogaa oo ma ay geen kartaan. waxay u kaxeeyeen dhankii aabbahoodii waa ayna u geeyeen. hase yeeshee haweeneydii waxa ay waraysatay qofkii qoryaha gurayay, waxayna ku tiri labadaanii wiil oo dhallinyarada ah oo quruxda badan adiga miyaa dhalay? labadaanii carruur anigu ma aan dhalin, hase yeeshee iyagoo aad u yaryar oo bahal oo cuni rabo ayaan bahalkaasi ka soo badbaadiyey oo gurigaygii ayaan geystay. carruurteydii ayaan ka dhigtay waa carruur baari ah oo aad u wanaag badan, aniga ayaana soo barbaariyey. hase yeeshee haweeneydii ayaa u sheekaysay qofkii qoryaha gurayay, waxayna uga sheekaysay qisadii min bilow ilaa dhammaad. waxayna ku tiri labadaanii carruur waa walaalahaygii, guriga adigu aad ka bixisay oo qoryaha ka samaysnaa aniga ayaa u dhisay. haddii aan geyn lahaa qasriga walaashaydii ayaa dili lahayd, sidaasi awgeedii duurkaani ayaan ku ilaalinayay. ari ayaan u raacayay walaashaydii, kadibna arigii ayaan halkan soo marsiin jiray, kadibna walaalahaygii caanaha ariga ayaan siin jiray. hase yeeshee maalintii adigu aad dugaaggaasi ka badbaadisay ayaan waayey walaalahaygii. waxa uuna u wacay labadii carruur, waxa uuna baray walaashoodii ka weyneed. qisadii oo idil ayaa looga sheekeeyey labadii carruur. aad bay u xanaaqeen oo u niyad jabeen iyagoo boqortooyo ah in ay ku soo barbaareen noloshaasi oo qoryaha la gurayay. sidoo kale waxay u carroodeen dadkii dilay aabbahoodii iyo hooyadoodii. gabadhii coradka ahayd, labadii wiil iyo odaygii qoryaha gurayeyba waxa ay wada aadeen gurigii odayga qoryiilaha ahaa. markii ay tageen gurigii waxay ku heshiiyeen in ay dilaan oo ay nafta dhaafiyaan sidii ay u dileen aabbahoodii oo boqorka ahaa iyo hooyadoodii. haweeneydii coradka ahayd, labadii wiil oo walaalaheedii ahaa waxay u soo kaxaysay dhankii qasriga uu ku yaalay. markii ay tageen qasrigii oo ay ka galeen albaabkii qasriga, waxaa meel dheer ka aragtay gabadhii yarayd oo sharta badnayd. durba waxay ogaatay hooyadeedii intii aysan geeriyoon in ay dhashay labadaasi carruur, waayo sidii ay ugu ekaayeen aabbahoodii ma aysan ahayn si suuragal ah. labadii wiil oo dhallinyarada ahaa waxay u dhowaadeen gabadhii boqorradda ahayd iyo ninkii qaadimka ahaa oo ninkeedii ahaa. xasan waxa uu istaagay qofkii qaadimka ahaa gadaashiisa, xuseenna waxa uu istaagay gabadhii walaashiisa ahayd oo sharta badnayd oo boqorradda ahayd gadaasheedii. xasan waxa uu dhabarka fallaar sumaysan ka geliyey qofkii qaadimka ahaa, waayo isaguba aabbihiisii ayuu horay sidaasi ugu sameeyey. sidoo kale xuseen waxa uu mindi sumaysan dhabarka ka geliyey gabadhii walaashiisa ahayd oo sharta badnayd. dadkii magaaladaasii deganaa iyo gabadhii coradka ahayd oo labadaanii wiil walaashoodii ahayd iyagoo ka yaqiiqsanaya oo dhibsanaya ayay qabuuraha ku soo aaseen gabadhii sharta badneed iyo ninkii qaadimka ahaa oo sharta badnaa. qof weliba dulmi sameeya oo wax dila maalin un buu helayaa abaalkiisii. haweeneydaasi sharta badnayd iyo qaadimkaasi sharta badnaa abaalkoodii maalinkaasi ayay heleen. sheekadii yarayd oo cajiibka badnayd intaa inoo joogto. walaalaha ku xiran janalka Cabdixakiin Bro, fiidiyogan haddaad ka hesheen waxa aan idinka codsanaynaa janalka inaad noo like garaysaan, aad share garaysaan, subscribe-na aad dhahdaan. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.